bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee sheekadii Dekaan Jacayl waxaad naga dhageysanaysaan waaga cusub radio barnaamijkan soo tabintiisa waxaa iska kaashaday waaga cusub radio iyo dalmar radio waana barnaamijkii dareenka bulshada qaybtii labaad ee sheekada oo aan idiin aqriyo anigoo Axmed Cali Sheekh ah ku soo dhawaada Nasruddin iyo Nimco Faarax sheeko dheer kadib waxaa lagu ballamay in la wada xiiro wuxuuna u sheegay inuu lacag u soo dhigi doono ayna ku heli doonto sida ugu habboon ee qaab xawaaladeedkii waqtigaasi ay ku qasbaysay inuu Nairobi ku soo xawilo ka gadaalna sidaasi taar loogu diro magaalada Muqdisho inkastoo Nasruddin uu dareemay qabow fara badan oo dhacay xilligaasi haddana dib ayuu ugu laabtay jiifkiisa isagoo riyo maalmeed ku jooga xaafadiisii waa bari Nimco Faarax iyadoo farxad iyo reenreen ay ka muuqato ayay ku guriga noqotay xaafadii ay ku nooleed intii ay jidka ku sii socotay waxa ay guda gashay muuqaal xusuuseed iyo xilligii dowladnimada dagaalkii ka dambeeyay diiftii iyo daacad darrada uu dalka ka dhaxlay daarihii burburay dadkii la dilay iyo dareen la'aanta dableyda hubeysan ee daadsan wadooyinka degmada waa bari markii ay guriga tagtay waxa ay isku turturtay sariirtii si ay dib ugu qooraasato duluucdii warkii ay Nasruddin isla daranduuriyeen daqiiqadihii yaraa ee farxadda ahaana u dhigmay saacado baahina ka yaraa hal daqiiqo falanqeyn dheer sheekadii dhex martay dhan kasta haddii ay u rogtay hadal waliba muraajaceysay kama aysan dhexelin kelmado huwan hadal daahsoon oo Nasruddin ku doonayo xiriirkeeda gabarnimo marka laga reebo tan walaaltinimo Nimco Faarax lafteedu waa noole naf iyo sheedaan ay la xiriiraan waxaana ku dhiida galay damac jacayl maxaa yeelay waa gabadh aan nolosha guurka dhadhamin macaan iyo qaraar way tagtay aroosyo badan gabdha ay saaxiibo yihiinna way kaga sheekeeyeen farqiga u dhaxeeya guurka iyo guur la'aanta lafteedu ummi maaha oo rag badan way la wadwaday maalmo waxaase xaqiiqa inaysan midkoodna ku qancin maxaa yeelay magaaladu waa madfac dhacaya meed wadayaal mooryaan qorisita mid marqaama maskax kala fiiga nafteeda ayay la murantay marba dhanbay milicsatay mowjado badan ayaa ku furmay mahiigaan baa hareeyay madaxay kaligeed ruxday maankeedu wuxuu jeclaystay inay muxibbada jacayl macaan ee la wadaa ku jira Nasruddin mas'alo badan jacayl miyaad moogtahay inay naftaada maqsuud ku tahay muraayada eegmadiyo haddaan midig bidix lahayn waxaad muuhataa rajadu miyaa la malayn karaa muuqaalka u daa nafto marka hore message c masawiradana u raaciyo markaa maskaxdiisa eeg sidaas ayay iskula hadashay waxay muusanaawdaba waxay hoosta ka xariiqday inay dhankeeda ka bilowdo xiriir jacayl xaajadu ma foga xaalkuna ma dhawa xamar iyo Stockholm xeeb iyo dhul ma wadaagaan xarbi ahli xamar xaalad wanaagsan Sweden dumar ayay u tahay damac jacayl haddii dadku weydiiyaan waa iska diidaa oo duluucdii caraweelo ayay ka dab iyo diliig qaadataa dadaalka Nasruddin ma yara dareen guur kuma jiro dagaalo inay dalkii la dageen uu og yahay biilkana waa u soo diraa dood kama taagno oo wuxuu uga dan leeyahay in daayiraantii ay dadka iska xigeen dugsi quraan isla qaataan dooqu waa balaaye Nimco waxa ay afdaboolnaataba subaxdii dambe ayay damacday inay dareenkeeda sheegato nafta u diiday dabcan waa astaan dumar iyo jacayl dabadeed dadaal dheer waxa ay horseed u noqotay in ay dad baxaya doonto oo hadiyad ahaan u dirto duluucdii isbeddelkeeda dareen iyo sawirro ay ku leedahay ila daawo dul iyo dacal iga eeg haddaan dal nabada dirin kugula seexdo biyaha ka bogsoodo soo daadah maaha sheekada wax raaga rag kuma samaala yiri dadkii ay hadiyadaha iyo fariinta ugu dhiibtay dalkii Sweden ma tagin oo Dubai ayay ku hakadeen laakiin dabcan Nimco maalintii waxa ay la tahay bil Nasruddin 9 bilood kadib 9kii fiidnimo waxa uu bilaabatay sheeko horseed iyo xusuusin taariikhii duugoobay oo ay soo wada mareen qosol iyo kaftan kadib Nimco ayaa hadalkii qaadatay oo tiri Nasruddin ma guursatay maya walaashiis ma guursan ayuu ku jawaab celiyay
وهي وانكو قرتي ولا المعان maadaama aadan weli guursan waxaan jeclaystay inaan aniga iyo adiga aan mustaqbal wadaagno wada sheekaysano heer guur maxaa yeelay si kale kuma sheeko bogan karno maxay kula sahay ayay tiri Nimco oo rabta inay ogaato wuxuu ka qabo fikradda ay soo jeedisay Nasruddin oo filan waa ay ku noqotay in adeega mutaxanay Nimco dama iladaha uga qaaday ayaa yiri ha abaayo waa sax waa arin fiican waxaad nala jeceshahay waan soo dhaweynayaa sheeko ugu jacayl ayaa labada dhinac la isu jiibiyay daqiiqado badan kadib ayaa la ballamay qof waliba iyadoo dhagta ka daalan dhabarkana ku xambaarsan duco qaba jacayl ayay kala dareereen biyaal badan jacayl haduu degdeg iyo daasoon u dago daaraha laabta hadal wixii dhex maray hamuun qabayaasha jacayl wuxuu himilo leeyahay ayay dib u higaadiyeen markii haasaawihii idlaaday waa runtiis habeenku dheera hurdo ma leh waxa hareeyay xusuus waa habeen aan hilmaami karin abid heeso jacayl bay sidii hoballo ku waasheen inkastoo aysan war iska heen heerka isku midka ay habeenka Nimco oo hurdo gamila ayaa maqashay jugta hoobiye ku habsaday guri ka soo horjeeday halhaleel ayay dibadda uga booday waa wareey hooyo macaan ma ku habsaday madfaca haloo gurmado heblaayo waa dhimatay hebel waa dhaawacmay halkee furan saacadan سدوم يا بسم الله لا قلت الله روح قودن الله وروح بنطح halista mooryaanta iyo hoobiyaha fuurida dheer la soco qaybta saddexaad ee sheekadii Dikaan Jacayl موجي